السلام عليكم. waa doctor mawlid ku daro dhammaantiin ba idin salaamaya halkiina kasii wadaya casharadii nafsiga ama dhimirka ku saabsanaa. caawa waxaan sii gelaynaa qaybtii 14aad xanuunkan nafsiga waxa isaga la yiraahdaa aan caawa gelayno pyromania. pyromania maxaa tahay marka hore haddaan sharxaad yar kooban kasii waxa weeyaan qofka oo hayn kari waaya inuu wax gubo. qofkan waxa maaragtay casharkii hore kasoo sheekeynay isaga maaragtay wuxuu ahaa mid qofku doonayo maaragtay mar walba inuu xado xataa isaga dan ka lahayn waxaas. waa kleptomania ma isaga kusoo qaadanay. tan aan iminka galina pyromania waxa weeyaan iyaduna waxay kamid tahay ma haday impulse disorder ku dhaca qofka inuu maaragtay waxaan ka fikiro ka bacdina ku dhaqaaqo marka tana waxa weeyaan qofka ay hayso pyromania waxa maaragtay uu jecel yahay inuu dab qabadsiyo meel kasta isagoo arintaas farxad iyo maaragtay wuxuu ka xiiseeyaa ay u noqonayso. haddaba si qofka loo yiraahdo waxa haya pyromania maxaa loo baahan yahay in maaragtay ay ku jirto ay arinta soo gasho. 6 wax baa la sheegaa in badana ay tahay in waxaas marka DSM-5 ka ku qoran waqti la yiraahdo ee maaragtay lagu kala saaro xanuunada nafsiga iyo dhimirka. marka maxay yihiin kow si loo yiraahdo qofkan pyromania haysa waa inuu qofkani uu si ula kaca u guwaa wax taasoo weliba ka badan mar kaliya. kow laba waa inuu maaragtay waxan ay u haysa maaragtay nafsad ah inuu marba wax gubo oo xaggaas isaga ku sii kicinaysa. saddex waxa weeyaan inuu qofkani ka helo ama uu soo jiidato dab haduuba dab arkaba markaas haddii maaragtay uu arka meel gubanaysa markaas u daawasho tagayaba. badan waxa la sheegay hataa qofkaas oo kale inuu daawado badan muuqaalada waayahan dabada waxaan bateen maaragtay meel walba la soo dhigo muuqaalo ku saabsan inuu waxaan daawado jecel yahay dabka ololka inuu ka helo dabka ololkiisa. afar waxay noqonaysaa inuu qofkaasi ka helo farxad iyo inuu ku raystaba marka wax gubo ama wax gubanaya arko kaasoo ama ha ka qayb qaata ama uu ka qayb qaadanay waxa meesha ka dhacay dabka isagu ha gubo isagu ha bilaabo ka qayb qaato kama dambays mar walba inuu isagu qofkaasi waxaan ay maaragtay ku raystaba. tashanaad waxay noqonaysaa inaan dabkaas qofkaasi uu maaragtay la leeyahay waxa ahayn kara pyromania inaanay sabab u ahayn sababo kale sida tusaale inuu qofkaasi aanu arrimo argoosi u samayn inaanu u samayn inuu cid dilo oo maaragtay criminal maaragtay aanay ka ahayn inaanu u samayn arrimo siyaasadeed kicin dad ama bulsho arrimo kale aan soo koobo inaanay sabab kale ku jirin intaan kusoo koobi karnaa oo badan karnaa sababaha ta u dambaysana waxay noqonaysaa inaanay sababin xanuuno kale oo dhimirka ah oo aanay qofka ahayn nooca doona ahaadaan qaar sahlan iyo qaar maaragtay daranba aanay ahayn. intaas wax haddii maaragtay soo koobo ay noqonaysaa in qofka haddii intaas ay isugu timaado sababood in markaa qofkaasi hayo pyromania hayso oo ah qofka maaragtay inuu dab ku dhajiyo meel walba jecel. maxaa haday risk factorska maxaa kamida waxa kamida inay u badan yihiin ragay ku badan tahay gaar ahaanna waxa mind retarded dadka kuwa ah gaar ahaan waxa weeyaan kuwa maaragtay waxay noqonaysaa markooda hore yaraantii haddii qofkan xanuunkan diagnosis lagu sameeyaa waxa loo yaqaano waxaan Soomaali ku noqonaysaa inuu maskaxda maaragtay waxoogaa qof yar dhiman bay dadku yiraahdaan moogtii qof yar oo maaragtay iska dhiman wax doona iska sameeyo oo magacyo badan dadku u yaqaanaan waxyaabaha noocan moogtii. marka
taasi waa taas inaan maaragtay in qofkaas rag ninuu yahay balse laakiin ay sidoo kale maskaxdiisu ay dhimanta ama sida dadka kale garaadkiisu ahaan ka dadka kale haddii historygiisa la eego dee la helayo in maaragtay lagu sheego waxaasoo kale in qofkan qof yar maaragtay barakaysan yahay waxaan maxaa yeelay in waxa kaloo ay noqonaysaa inaanay taariikhdiisa ama laga helaynin inuu qofkaasi qof daran yahay xayawaanka ama maaragtay xun intaa laaya moogtay meesha ku arka taas waa taas maxaa ka mid ah haddaba symptomska iyo calaamadaha waxaa ka mid ah inuu qofkaasi daawado badanaa dab kacay jaarkiis ha ahaato ama meel kaleba ha ahaato inuu isagu maaragtay uu sameeyo waxaa jirta imika waddankan oo kale ruushka ama de wadamada kaleba horumaray meel kasta waxaa ku taalla marka halkan oo kale ka baxday jaanjada kasii degayso waxaad jirta meel qofku taaban karo oo haddii dee ay dhacdo maaragtay dab oo kale uu jiri sameynayo ama halkan janjaramaade meel kastaad way ku oli kartaa dabaqan meel kasta xagga hoose meelo badan oo ka mida maaragtay dabaq kasta way ku taallaa ama guri kasta way ku taallaaba si loo taabto marka waxa weeyaan fire alarm weeye inuu qofkaasi mar walba iska taabto meelahaas oo kale badan ama ay jirtada history ah inuu taabtay si ay usoo yimaadaan kuwa maaragtay dibdamisku waxaa jiraysa qofkaasi in aanu maaragtay ka qoomamaynin waxa uu sameeyey kama qoomamaynayo waxaa jirta inuu maaragtay se tusi karo marka la xidho ama maaragtay dee boolisku kale qof weydiiyaan la ogaado inuu ka dambeeyey inuu iyaga tuso maaragtay inuu ka xun yahay balse aanu maaragtay caadi ahaan ka qoomayn sidoo kale waxaa iman karta iyadana qofku xilliga waxaan ku jiro inuu dareen ahaan kaco marka waa sexual aroused weeyaan by the fire marka maxay u kacaysaa waxa weeyaan casharka shalan shaxay maaragtay adrenaline qofku waxyaabo badan jira maaragtay dadka raadiyaan oo jidhkooda maaragtay waxyaabadan ka bedelaya iyada markaas sababta hormoonkaas in qofka dareenkiisu kici karo haddii aanu imaado differential diagnosis waxa weeyaan in maaragtay laga saaro si maaragtay waxa weeyaan laga saaro si loo yiraahdo qofkan waxa haysa maaragtay pyromania ko inaanay jirin sababo kale oo waan xaq oran ku sheegnay marka ko inaanay sabab maaragtay dee waxa haduu inuu wax ka helayo ama lagu siinayo inaanay argoosi ahayn oo revenge jirin inaanay dambi maaragtay kala aanu rabin inuu qofkan cidlaayo inaanay jir arrimo siyaasadeed oo arrintaas maaragtay ku loo sababayn karo qofka inuu sameeyo cid kale ka dambayso inaanay ahayn arrimo argagixisan terrorist inaanay ahayn oo aan arrimaha u sameynaynin inaanay ahayn mudaharaad iyo inaanay ahayn in waxaan ka dhalatay qofka yar ku ciyaaraya maaragtay carruurta kale hadii ka dhalato kale soo ku ciyaaraya kabrid ama bid ama wax kale oo maaragtay dab dhalin kara talabaad laga saaray waxa weeyaan inaanay iyadana jirin other mental disorders kale inaanay jirin oo qofkan ku keeni kara inuu ilaa heerkan gaaro dhibaatooyin kale oo maaragtay xanuun oo nafsi ah kale ama maskaxiyan ama xanuun kale oo maskaxda ku dhici kara oo sababi kara oo aan ka baxsan baxtaa in maaragtay psychiatric ama psychologiga ka baxsan inay keeni karto sidee loo daweeyaa marka xanuunkan pyromania la yiraahdo dawo ma laha ilaa hadda weli waa lagu daba jiraa wax dawo oo uu leeyahayna ilaa hadda cidi ma sheegin waxa kaliya maaragtay loo sameyn kara qofkan dee waa in maaragtay la qabto ama waxa la yiraahdaa incarceration in la sameeyo ama qofka dee in adigu dubidajino kale lagu sameynayo noqonaysa adigu qofkan in maaragtay la talin ama waxyaabo noocaas ma la siin karaa kulli laakiin dawo la sheegi karo oo maaragtay jirta oo qofkan ka caawinayso in arrinta ka tago ma jirto halkaas aan kusoo koobaya caawana casharkaas pyromania la yiraahdo kule inaga waayahan dambe anigu sidaan arkay dadkeena uu dab baa kusoo badan waxaan kala garan waayay anigu dabkan soo badanaya ma marka hore baan qofna ogeyn de magaalo kale waxa ka dhacayso oo waayihii hore mayna ogaan jirin qofka magaalada ku nool gaar ahaan xaafadda ku nool buu ogaan jiray oo hadda waxa batay fiidiyodan la soo duubay mise maaragtay de pyromania lafteeda soo korodhay ama dad baa jira de siyaabo kale u gubay wax labada mid bay noqonaysaa kulay waxay u badan tahay inaanay maaragtay aniga say muuqato dababkan badan ee kacay ee dalka laga soo duubo meelo badan
inay tahay un berigii hore inaynaan maaragtay cid soo duubi jirin oo de facebook watan isugu yimi iyo meelaha kale baraha bulshadaba marka ay sababtaasi keenayso inaynu aragno dabkii sii farabatay dabka kacayo sii farabatay siyaabo kale waa jiri karta in la baaray u baahanta laakiin lafteeda oo aan la oran markasta dabkii waa maaragtay dabba kacay waa la baktiyey halkaana lagu ilaawo waa day la tahay inay iyagu laftooda baarayaan dadkaasi oo aan warka hayn halkaas inta inaga inoogu joogsamayso warku dabba halkaa ka kacay inoogu joogsamayo marka halkaan kusoo koobo wixii intaa dhaafsan daawatay casharkaas dad daawatay wixii kale ee maaragtay haday tahay sida ila sii socon lahayd ku saabsan halkii aad ku aragtaba muuqaalkaas waad garanaysaa waxaa la yidhi kor waayeel waa wada indho. Wassalaamu calaykum.